waxaa ku soo biiray odayka la yiraahdo maxamuud sheekh ibraahim oo asagana dhaqamada kale Soomaalida qayb ka badan aad iyo aad u haya bal xaaji maxamuud waxaad ka hadashaa bal qaybihii guurkii hore qaabkii gabadhaha loo kaxaysan jiray saddexdii nooc ama afar nooc ama laba nooc sida aan jirtay يعني هاساوي هوري iyo shukaansigii iyo isguursigii iyo bal sidoo ahaa haatan waa lagu wareeray oo waxa leeyahay may aragtaa waan ku arkay gabadha soo bood baa leeyahay dadkii isku sallibay ku fadhiyaan markiiba way ishelayaan annaga bal dhibaatada naga haysatay guurka iyo qaabka ahayd bal ka waran bismillaahir rahmaanir rahiim horta gabayre iyo waqtigii hore annaga gabadhu markaan geedka dhinacan ka joogno dhinac kale joogsan jirtay oo gabadha gacanba labaanaan gaari jirin afmumaan la gaari jirnay inta badan markaan adu muddo ariga ka habsaamino iyaan inanta erey ka heli jirnay erey ama labo aan ka heli jirnay inanta aan ereyga ka helay waxaan jeclaan jirnay inaan wajigeega aragno oo waxaan aadi jirnay meesha ay ku nooshahay baan yaa kormeeri jirnay oo reerka markaan aragnay inanta iyaan hadana noqon jirnay oo darahayaga aadi jirnay guurka hore wuxuu ahaa saddex mid wuxuu ahaa gabadh isbixisay oo iyadu wiilka raacday intay la sheekaysatay ay sheekaysteen raacday gabadhi waxay ahayd gabadh soo gasha oo wiilka iska arkoota oo guriga inanka hooyadii oon iyadoo fadhida la arko galiin baa looran jiray way soo gashay baa looran jiray subag baa madaxa loo marin jiray marka subagga madaxa loo mariyo kadib baa reerkii inantu ay ka dhalatay loo tagi jiro looran jiray war inantii cayn hiblaaye hebel waan haynaaye kaaleen nagu mahriya taasina galiin baa looran jiray midna waxa looran jiray doonista marka odayaal cimaamada waaweyn baa tagi jiray oo israaci jiray oo aniga gabayra daan caruur noqonayno iyaa israaci jiray geedka loo fadhiisan jiray aabaheed iyo adeeradeed iyo aqladeeda la weydiin jiray halkaas gacanta la isgelin jiray oo guunyo la kala qaadan jiray oo marka de maalinta guunyada la hor degdeg laga qaatay maalinta waa la sooriyeyn jiray sooriyo marka la sooriye ee gacan qaadku aw dhaco ayaa la kala tagi jiray markaas meherka lagu meherin jiray waa lagu ducayn jiray inanta sidaa lagu doono reerkooga guriga iyadoo ay ka dhalatay baa lagu dhisi jiray aqalka ayaa lagu dhisi jiray markaas la oran jiray hebel waa inan la yaal markuu muddo ahaado ee marka dambe reerkoogii loo soo rarayo awr baa loo soo rari jiro aqal baa loo soo rari jirayo ajiib ahaa reer dharoo la soo rarayo oo xoolo wato oo dad wato odka iyo alaabtii iyo xeeradii la keeni jiray horta anu aad baan xusuustaa wiilasha dambe ma helaan laakiin markiiba gabadhiyo furdug soo tiri un bay hore ay fooda ka gelinayaan annagu laakiin odkaca inta la soo sameeyay waxa soo dhan baa sugu jirnay Soomaalida garan waxaad hadda bal ka sheekaysaa aaladan cusub oo markiiba la isku soo boodayo asagana bal taabo gabayray xasuusiye odkacaasi marka aqalka banaanka lagu dhiso iya odka lagu keeni jiro odka waxa ka soo gojiray sodohda iyo gabadha eedadeed iyo in adeerteed iyo kuwaasaas oo odka keeni jiray hadda maanta war Facebook baad iska aragtaan nimadina yar Facebook baad iska aragtaan waynantii waa ku arkay may aragtay oo waa kaas oo sawir soo diro sawir baad isku diraysaan oo sawir markaas isku diraysaan baad idinkii isbixinaysaanba idinku ma isbixinaya waxa dhintay qiimkii waxa dhintay guurkii waxa anu saasaan u arkaa laakiin dadka nimku gabayrow waxay u arkaan wanaag baa arkaan sidaa uma arko markiiba hadii hab la siiyo jacayl soo booday oo arkaa war jacaylka soo booday furri soo booday buu leeyahay soo booday kowdhe alaabta soo boodo markiiba casriga anigu horta waan ka helay waan rafaad ragayga hore Soomaalida garan way naga rasiib badiyeen ragaani Soomaalida garan marka waxaan leeyahay Allah soo barakeeyo maadaama aalad cusub heleeno London bay ka soo boodaysaa Muqdisho ka boodaysaa Hargeysa isla tagayaan ka bacdina baalkii markiiba waa la aroosaya odagana hawada laga hadlayaa dariska ogaan maayo marka alaabta cusub waad ka waran guurka furiinka degdegaana ka waran hawadu lagala booday halkaan lagala booday inantii waan furay lagu soo dhibal ka waran kaas waa beenta la isu sheego waxa qatarta keena in been la isu sheegaa daran
waxa guur waxa keenaya qoyska inuu burburo waar gabayro keenni hora fiicnaa maya warniyo kaali rafaad rafaad baa naga tag ayaa inta badan meediya wax badan ayaa daawan doontaan odayaal iyo dhalinyaro ka doodaysa ayaa daawan doontaan insha allahu tacaala inaad sheergaraysaan oo arrintaas aad iyo aad uga shaqaysaan ayaan idinka codsanayaa anigoo abgaal cabdisalaam axmed gabayre ayaa daadiin doona barnaamijkan assalaamu calaykum